dagaalka galan leh anu galan leh dagaal qorigaygu saaka aniga way diyaar saaka diyaar baan u nahay annagu dadka dib u noqdo ma lihin annaka warna yaqaana reer Duub Cismaan baan nahay dad dhulkiisa riday waaya annagu ma niyooriya madaxweynaha Soomaaliland war madaxweynow haddaad nin qaran haddii aad tahay oo dadka beelweynta had isku diraysana sideeda u soo cadow haddii laga helo kulba geed haydaba joogsan waana u dhimashadana waana qaan noloshana waana qaan dagaalkii diyaar baan u nahay goobta xariiradna inaad degdeg uga baxdid shaqayba noo tahay gooja caddaan shalay tiigsanayna maantase halkanaaba gooja cad ka dhow wasiirkii ku baaqay nin baad xukuumaddiisa uu ka mid yahay oo magacaabay shalay waa Muuse Biixi wey madaxweynaha dalka wey haddii aad talaabo sharciga ka qaadi weydo waxaad ka qaaday aroos u yimid aroos buu ka hadlay oo beeshaydan la dareenahay yadalka ka qaaday wariga kaasi dadlaawo ma ahayn waa annagu naga dhashay annaka u nool annaka u dagaalami doona haddaad adigu ka talaabo ka qaadi weydo waxa dhici doonta ikana an eraygii aad ku eriday ka argudun wax kale oo ku hayo halka ku yaala ma jiro haddii saddex xabadaan shalay wada ridnaan halkan aan ku kala yaacnaa naga baqatay ay ku deeq weyday maanta tadambe dhacda waxa la oranayaa xad baan kala yeelanaynaayo xuduud hanan la isku soo marino xafiisyadu naga saxeexaano wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiir ku xigeenno iyo shirka furay kamid aha dhageysanayay ku raacay waxa weey dawladdu inay ku burburiso gacanteeda heshiiskii burco iyada kowka magaalada xariirad bari iyo galbeed intaba annaka ka digan kan saa kale aniga leh dhinaca oo ka yaalaba wali iyo haddana uu raadcadiisaanahay waran meeshii aanu dhalanay u dhibanay weey maadaama uu qaxootinimo shalay ha ku yimiday saakana dagaal oo cilaaminayo oo ku dhawaaqay oo u qabtay magaalada xariirad bil waxaan leeyahay war ii soo dadejiyo 15 cisho iiga dhig baan anigu leh 15 cisho iiga dhig halkaad adu bisha ka qabatay 15 cisho iiga dhig haddaad 15 ka cisho haddii laga dagaalka aad ku ridi weydana dhabarkii ciise ee shalay adiga jabiyay aniguna waxaan leeyahay berri haddii dagaalka aad ridi weydo oo codkaana soo dhigtay ana u diyaara annakaana galayna una diyaarsanna haddaan nahay beelweynta reer Duub Cismaan haddii aan nahay wadanka sidii ha u yimiday ee qaxootiga ku ahaa ee u soo galay ee shalay uga keenay dhagago waa inuu uga noqdo weeye haddii uu noqon waayo oo nabadgelyada iyo haddii laga helo baruurta iyo biyaha aan siiyay dan u noqon weydayna annaka dagaal diyaar u ah subax saaka annaka diyaar u ah jinna ninkii keenay bixi annakaana keenay barbari ninkii beertay gubtay boqornimadii aan shalay aan sodohda ahayn madaxweynaha ku ahayn ayaa ku keenay shalay annakii magaca reer Duub Cismaan ah annakii baana saakana saarayna diyaar baanan u nahay inaan dagaal iyo xabad iyo nin waliba wixiisina u diyaarsan yahay qorigaygu saaka aniga dhalinyartii hawlgelinta nin walba waxaan jirtay way diyaar saaka wayna ii diyaarsan yihiin waana ii diyaar saaka dhimashaduna waa xaq weey cambada iyo beeraha anaa iigu taala anaa beertay caruurtaydu baa dhaxalkeeda leh berri kii dhinta haddaan ay noqdaan iyaga baad yeelan xariiradse nin ii daba fadhiista mooyaane nin haddii laga helo iigu taliya waan ka dhimani haddaan reer Duub Cismaan haddaan ahay waan ka dhiman ilaa lug haya ilaa saylac waan ka dhiman cidda saaka iigu talisa waan ka dhimanaya waaye waxay haddii la Soomaaliland bay noqoto madaxweynaha Soomaaliland war madaxweynow haddaad nin qaran haddii aad tahay oo dadka beelweynta had isku diraysana sideeda u soo cadow haddii laga helo kulba geed haydaba joogsan waana u dhimashadana waana qaan noloshana waana qaan kulba wasiira soo dir waxa weeye taana waxaan leeyahay Muuse Biixi haddii aad gacantaada wax kaga qaban weydo wasiirka gaashaandhigga haddii aad gacantaada wax kaga qaban weydo ee dagaalka ku baaqay
reeraha haddii laga helo isku diray gacanteeda wax ka qabanayna diyaar baan u nahay annagu dadka dib u noqdo ma lihin annaka waana yaqaana reer Duub Cismaan baan nahay dad dhulkiisa riday waaya annagu ma niyorya saaka adna leedahay waa ad leedahay saaka waan kula leeyahay bil hadii qabanayso nin aad dhulkiisa riday waaya anu mees sabaroona waxaan leeyahay beelaha garabkayga iyo mataanta bahabar celi gaalan leeyahay dagaalka gaalan leeyahay anu gaalan leeyahay dagaalka reabtige oo dagaalkii oo noogu baaqay diyaar baanu u nahay dhalinyaro dhan inay camalba u tahay iyay diyaar u tahay shalay hiigsanaysa goojacada inay tagto maanta halkan aba goojacada noqotay abti daadaaba noogu baaqay diyaar baanu u nahay jinna ninkii keenay u baabixiy abti shalay adaa lagu keenay reedidu baana ku keenay xukuumadda reedidu ma u joogtaa ku keentay maantana waxaan leenahay kuwii ku keenay unbaa ku bixin abti maxamed aadan dayl baa jooga maanta halkii axmed xaaji taagnaa maanta maxamed aadan dayl baa jooga hogaamiyayaashu kama dhammaan reer kaloo xumaano dagaalkii diyaar baan u nahay goobta xariiradna inaad degdeg uga baxdid halkii ay biyo baadba ku yeelaan digatay abti waa kale waa meelad garanaysid waa inaad halkii iska tagtid abti dagaalkaad ka soo qaadid waxaanu ku leenahay abti dagaal waxba yaan la iskugu baaqin waxba yaan la iskaga cabsiinin nabaddu way macaan tahay hadday markuu cito annagana waa noo camal bay noo tahay nin camal noo sameeyey shaqayba noo tahay goojacaddaan shalay tiigsanaynee maantase halkanaaba de goojacad ka dhow halka goojacadda tuuya waxaani leenahay abti sida u dhaqso badan waa inaad faraha kaga qaadid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baaqaa hadirteeni sida uu idiin geli dooniyo siduu inila xumaan doono waa la wada og yahay midda kale dhulkan aad sheegteen eed sheeganaysaan eed leedihiin annakaale dhul ninkii lahaa joogo inaad sheegato oo tidhaahdo anaa le oo anaa deegaankaygii ayuu yahay shalaan qaxooti ku timid abti runta haddii laysku sheego shalaan qaxooti kugu soo dejiyey maantana qaxootinimadii haddii ay dhacday inaad ku dhiragto saa doonta u hadasho xabaddii shalaa kuu taalla ogow taa waxaana nahayna lagaaga shaqayn maayo laguguna jawaabi maayo waxaana ugu horreeya ee baaqa uunu diraynaa wuxuu yahay muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan golihiisa wasiirka gaashaandhigga ee somalilan jamhuuriyadda somalilan iyo wasiir ku-xigeenno iyaa shirkaa furay ka mid ahaa dhegaysanayey ku raacay waxa weeye dawladdu inay ku burburiso gacanteeda heshiiskii burco iyadaa kowka ah taana iyadaa kasbatay wixii dheefteeda ay ka heshan ani waxba iga siin ciddii ay wax kaga daadanaysa kaga daadan aniga kaga daadan mayso baaqii ay gobolka awdal u soo saareen ay lahaayeen awdal isteed iyo waxbaa jira inay iyagu wax wadaan baa maanta cad sida ugu dhaqsaha badan leh haddii wax uga qaban waayo wasiirada ee meet intay yimaadeen waxay dooneen ku hadleen ee baaqaana keenay haddii tallaabo sharcigaa laga qaadi waayo waxaa noo cad noona waanu ognahayna oo meeshaa muuqata in fartaa ay wado madaxweyne muuse biixi cabdi iyo wasiirada haddii la qaban waayo ta labaad waxa weeyaan wasiir hadle shalay oo aroos ka hadlo yidhi dareenka dadkaygaan la mid ahay oon ka hadlay ayaa markiiba la qabtoo lagu eriyey kanna shir buu qabanayaa wufuuddii reerahuna isku diraya dabkaa halkaa ka shidmaya cidda colaaddaa hurisayna waa wasiirka gaashaandhigga haddii aan nahay dhallinyarta beesha duduc cismaan gaar ahaanna degmada xarirad cid aan u daba fadhiisanaynay ma jirto samaroonu wada degaa degaankeeda waa la wada leeyahay laakiin annakaa iskale dhiiggeegii baana ku daatay yaallana cid aan u daba fadhiisanaynaana xeradeeda ma jirto anigu dadkii qaybta samaroon ay tahay salaada lagu xidhanayay baan ahay haddii aan xogogaal kale u noqdo waxaan ka hadlayaa nimankan ku baaqaya iminka colaadda iyo dagaalka anigu xogogaal weyn baan ahay xogogaalkaan ahayna waxaa ka mid ah horta anigu dhibaato aanan annaku isyeelinnamaba gaadhinba tootalba markaan beeshan xariirad ka hadlaayo dhibaato aan annaku isyeelin mama gaadhin ninkii 6 hablood iyo 3 oday cabdulqaadir ka soo qaaday shixnadda ah ya ka soo qaaday dhagago ugu fariin diray ee cabdulqaadir ugu yimaadeen ee xariira sida shixnadda ay sidaa ku beeranto anigoo ka raacayna dad jacayl iyo abti jacayl iyo wada deganaansho ayaan ahay horta anigu waa noolahay maantana waa noolahay
halkan waxaa ka muuqda nimankii hoggaamiya dagaalka yaa anigaa laygu tiriyaa oo ka mida kow halkan bay joogaan yaadeer inaan yar tooba keennaan doonaynay abti inaan yaro tooba keenno ayaan doonaynay laakiin iminka waxay u eg tahay inaad toobasheeg aad nagu waddaan haddii laakiin aad wanaaggii iyo wada noolaashihii iyo nabaddii iyo wixii aan ahayn ee tacabka ka gallay annagu anaa tacab ka galay kama gelinin ciisihii anaa kugu tabcay anaa ku keenay xariirad ya inaad tiraa xariirad anigaa le heblaayiiyo ha ka baxaan iyo ree hebel horta waa abaalkaygii aniga hadlaya wey aniga hadlaya waa abaalkaygii wey markhaatina waanu haystaa iskama faanayo maxaad u faanay tari maayo hadal iyo dhammaan taasi waxay ku eg tahay dee beesha ciise aniga waxay igaga dhan tahay uun dagaalkii ay ku baaqday wasiirkii ku baaqay nin baa dee xukuumaddiisa uu ka mid yahay oo magacaabday shalay waa muuse biixi wey madaxweynaha dalka wey haddii aad tallaabo sharciga ka qaadi weydo waxaad ka qaaday aroos buu yimid aroos buu nin ka hadlay oo beeshaydaan la dareenahay yaad xilka kaga qaaday wariga kaasi dee kaasi dadlaawo ma ahayn waa annakuu naga dhashay annakaa u nool annakaa u dagaalami doonnaa haddaad adigu kaa tallaabo ka qaadi weydo waxaad dhici doontaa in kana aan eraygii aad ku eriday ka aargudano waxa weeye ciisow haddaad go'aan ku gaadhay inaad la dagaalanto gadabuursi waar ka kaale gadabuursiyo reer duduba oo qabiilka u hooseeya yacnaha abtirsiinta halka u hoosaysa yaallaad saaka dhaafi karaynba kaasaad diyaar ku oona dhaafi karayn dagaalkii u dambeeyey halka shalay ka dhacay taariikh buu lahaa tii au lahaana halkii lagugu geeyo waad garanaysaa shalayna rayaalaa ku soo kaxeeyo xariir dib kuu keenay dee maantana dib u guur inaad igu tiraa wadda waan kuu furay yacnaa dib u sii guur inaad igu tiraa wadda waan kuu furay anugu laakiin haddaad moodayso raggii reerka u soo halgamay inuu ka dhammaaday waxuunbaa ku biiray qorigu haddaad moodayso inuu naga dhammaaday somalilan u dhammaay aqalka dhexdiisu ku daxalaysta waxaan kudhi wax midha ka daadiyuu leeyahayba wax kale oo kuu hayo halkaa kuu yaallaa ma jiro hadday saddex xabaddaan shalay wada ridnan halkan aan ku kala yacnaad nagaga baqatay ay ku deeqi weyday maanta ta dambe ee dhacda waxaa la odhanayaa xad baan kala yeelanaynaayo xuduud hanan la isku soo marino xafiisyadu naga saxeexaano halkan waxaa shir jiraa'id kaga hadlaya beelweynta reer dudub ee deegaanka xariirad in badan baan dagaal soo galnay waan lasgaranayaa kii u dambeeyey eenu joognay shalay qaxootigeeda waxaad ka tegtay shalay markuu cinacigaal waa kii yidhi dadigama maqno waa kii yidhi ninkii soo raray wuxuu ahaa ina rayaale ee ku keenay xarad ee ku dejiyey kiyow shalay ku dejey oo qaxootinimo kaa soo raray etoobiya kuwaad mahadnaqna wadayaa saa kale ka guur waan ku rarayaa ma dhaacayso dalkayaga beerahayaga duunyada midba kama guuri karo xaradna cid ma fadhiisanayno ba horta xisaabo degaan maxaad ku leedahay xariir haddaad sheeganayso marka waxa weeye dagaalkii aad ku baaqday diyaar baan ku nahay waxa weeye haddaan beelweynta reer dudub ilaa tasamaroon diyaar baa lagu yahay ayuuna gobolku inoo kala dhicin hadday ballantaadu been noqotona annagaa diyaara annagu dhul naga maqan yahay